kulanti wacan daawadayaal halkani waa Ilwareed News. haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar si aad u hesho xog ku saabsan wararkii Soomaaliya iyo kuwa caalamkaba. Faahfaahin dheeraad ayaa waxaa laga helay khasaaro ka dhashay duqeyn culus oo xalay ka dhacday gudaha deegaamada Aadan Yabaal iyo deegaano hoos yimaado ee gobolka Shabeelle Dhexe. Duqeyntan oo ahayd bartilmaameed ayaa waxaa lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa aagga Aadan Yabaal, waxaana lagu gaarsiiyey khasaaro culus. Wararka ayaa sheegay in duqeynta sidoo kale laga helay gaadiid ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan Shabaab oo gurmad ahaan uga soo baxay deegaanka Ceel Cali Axmed, iyagoo ku socday dhanka deegaamada Aadan Yabaal si ay u xoojiyaan Al-Shabaab kale oo ku sugnaa halkaasi. 2 gantaal ayaa lala helay kolonyada Al-Shabaab oo kaga soo baxay Ceel Cali Axmed, waxaana gaadiidka qaar saarnaa rasaas kuwaasoo gebi ahaanba qoto ku basbeelay. Sidoo kale wararka ayaa intaasi kusii daraya in duleedka Aadan Yabaal ay haatan ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macawisleyda oo doonaya inay quluf u qaadaan deegaamadaasi si ay uga saaraan kooxda Al-Shabaab, waxayna hadda kabiga ku hayaan deegaamadaasi oo ay dhowaan dib ula wareegeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Xaaladda ayaa kacsan, waxaana lasoo warinayay in Al-Shabaab ay haatan dareemayaan culays ugu xoogan, waxaana sababay dagaalo ku qabsaday gobolada Hiiraan oo lagu jabiyay khawaarijta. Dagaalka u dambeeyay ee ka dhacay xadka Hiiraan iyo Shabeelle Dhexe ayaa waxaa Axaddii shalay lagu laayay ku dhawaad 100 Shabaab ah sida ay sheegtay dowladda dhexe. Geesiyaasha deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo socday ku dhawaad 48 saacadood ku dilay in ka badan 70 xubnood oo ka tirsan khawaarijta, iyagoo sidoo kale cadowga ka furtay hub aad u badan, ayaa lagu yiri warar ka soo baxay dowladda. 2 maalmood ee lasoo dhaafay waxaa dhacay dagaalo la isku riiqmay. Hogaamiyaha ciidanka deegaanka iyo macawisleyda Xawaadle Cabdi Gumey ayaa ka mid ah geesiyaashii ku shahiiday dagaalkaasi. Sidoo kale 10 askari ayaa ugu dhimatay ciidanka xoogga iyo kuwa deegaanka. Kooxda Al-Shabaab oo la isugu daray weeraro toos ah, iska caabin, weeraro ay soo qaadeen iyo weeraro jidgal ah ayaa lagu laayay sodinta 2 gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, waxaana hadda la gaaray aagga Al-Kowsar iyo Aadan Yabaal oo Al-Shabaab ay ka qaxeen. Dowladda Djibouti ayaa si rasmi ah u bilowday tallaabooyin adag oo ay ku masaafurinayso muwaadiniin u dhashay dalal ay ka mid tahay Soomaaliya. Muwaadiniintan la musaafirinayo ayaa sidoo kale ka soo jeeda dalalka Yemen iyo Itoobiya, kuwaasoo lagu eedeeyay in ay ku xadgudbeen shuruucda deganaanshaha iyo shaqada ee dalkaasi, iyadoo dadka la bartilmaameedsanayo lagu helay in ay si sharci darro ah u joogeen dalka ama ay u shaqaynayeen. Tallaabadan ayaa imaanayso iyadoo dalalka dadkaasi laga soo musaafirinayo ay ka taagan tahay xaalado amni darro iyo dhaqaale oo aad u liita. Warbixinada qaar ayaa muujinaya in dadkaasi horey ugu soo carareen colaad iyo xaalado nololeed oo adag, taasoo walaac xooggan ku abuurtay hay'adaha caalamiga iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha. Djibouti oo ah dal istiraatiiji ah ku yaalla Geeska Afrika ayaa sanadihii lasoo dhaafay martigelinaya qaxooti fara badan, gaar ahaan Yemeniyiinta oo dagaal sokeeye dalkooda ka socday tan iyo 2015. Dadkaasi ayaa dalka Djibouti u arkay meel nabadoon ay kaga nabadgalayaan colaadda. Tirada dadka Yemeniyiinta ah ku sugan Djibouti ayaa lagu qiyaasay 10,000, iyadoo ay wehelinayaan qaxooti kale oo ka yimid dalal ay ka jiraan colaad iyo dhibaatooyin nololeed ee sida Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea. Xarumaha ay qaxootiga degan yihiin ayaa u badan kuwa aan rasmi ahayn, taasoo sii muujinaysa xaaladooda nololeed. Wararka laga helay ilo maxalli ah ayaa sheegay in howlgallada lagu qabtay 100 qof oo ka dhaceen xeryo iyo deegaano barakacayaal leh si ku meel gaar ah ay ugu noolaayeen. Dowladda Djibouti ayaa la sheegay inay diyaarinayso in dadkaasi lagu celiyo dalalkii ay ka yimaadeen, iyadoo aysan caddayn meelaha saxda ah ee loo musaafurinayo. Hay'adaha samafalka iyo kuwa xuquuqda aadanaha ayaa si adag ugu digay khatarta ay tallaabadani leedahay, gaar ahaan marka la eego haweenka, carruurta iyo dadka da'da ah ee barakacayaasha ah. Waxay sheegeen in ku laabashada meelaha colaadda ka jiraan ay si toos ah khatar ugu tahay nolosha dadkaasi. Ururadaasi ayaa u baaqay dowladda Djibouti iyo beesha caalamka in la xaqiijiyo ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee dadka qaxootiga ah. Sidoo kale waxay codsadeen in la musaafurinayo dadkani ku sugan xaalad nugul ilaa la helo xal waara oo ammaan ah lagu badbaadin karo noloshooda.